limarka xanuunsanay horta been waay nin aqligiisa qaba oo wuxuu ahaay mataqaana dagaal soo aaday waxaana laga soo diray oo ka imaaday dhinacaas oo ka imaaday jeeso waa keenay gubay inuu xanuunsanaa la sheegay adiga ma xanuunsanin dagaal u soo baxay beentis waa jeeso waa waday asaana sheegay shalay tuulooyina la gubay naaga iyo caruura lagu gubay daraadna mataqaana odayba mataqaana meel lagu dilay ka horna 7 wiil oo meel iskaga ciyaarayso 20 jiryaal la jarjaray dadka waxa sameynaya dad meel kale ka imaaday waay ugu horeyntii mudane xilbaan soo dhawow deegaanadii aad matalaysay ee koonfur galbeed dhacdooyin murugo laha ka jiro beela isku duleynaa beela la isku dilaya bal arinta ka war hadanka arintaas waa ka xunnahay waa murugo dadka wadana ka waanto waan leenahay shalay tuulooyina la gubay naaga iyo caruura lagu gubay daraadna mataqaana odayba mataqaana meel lagu dilay ka horna 7 wiil oo meel iskaga ciyaarayso 20 jiryaal la jarjaray dadka waxa sameynaya dad meel kale ka imaaday waay waa dad mataqaana dad baa wado magaca qabiil in maalin walba la sheego dhulku raadinay dhulkana waa weyn yahay walway daafad iyo buur dhaxdooda dhul ma yaalo waa gartay xildhibaan jees soo hadlay wuxuu ku eedeeyay madaxweynaha koonfur galbeed iyo taliyaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed inay la jiraan beelaha dagaalamaya beel kamida maxaa arintaas ugu jawaabay salaam calaykum jeeso beledweyne iyo joohar iyo buuri burda wax laga weydiiyaa shaqo isku maliin anaga isku deegaanna ma nihiin laakiin beelaha isaaya beel kamida uu ka dhashay halka ka dhashayna dadka meesha degaayo oo majority-ga digil imarfil iyo biimaal waay mana ku jiraan ayaga dadka ku noolaan jirayna Soomaali meel kasta waa joogtay asaga kuwaas ma ku jiraba gabagabadii waxa waay jeeso ha ka waanto koonfur galbeed arrimaheeda inuu ka hadlo ugu dambeyntii dhacdooyinkan lagu arko koonfur galbeed waa waxaan hore u dhicin in qof dhimirka ka xanuunsanaya la gubo in hooyooyin iyo caruur guri lagu gubo arrintan maxaa lagu xalli karaa dhimirka xanuunsanaya horta been waay nin aqligiisa qaba oo wuxuu ahaay mataqaana dagaal soo aaday waxaana laga soo diray oo ka imaaday dhinacaas oo ka imaaday jeeso waa keenay see ku xaqiijin kartaa waa la og yahay jeeso ha ka waanto koonfur galbeed arrimaheeda hiiraan ha ka hadlo waa gartay ma ugu dambeyntii ma ninkii la gubay inuu xanuunsanaa la sheegay adiga ma xanuunsanin dagaal u soo baxay beentis waa jeeso waa waday asaana sheegay